ayday maanta ku beegneed 6 bisha Febraayo oo maalinta dadweynuhu aqoonsaday inay tahay maalinta caalamiga ee gudniinka gabdhaha ayaa waxa si weyn looga xusay gudaha magaalada Hargeysa. Halkani waa hoolka hay'adda shaqaaluhu ku leedahay gudaha Hargeysa oo si weyn saakay u soo buuxdhaafiyeen xubno kamid ah golaha wasiirada xildhibaano ka socday labada aqal gole ee guurtida iyo wakiilada. saraakiil ka tirsan wasaaradda diinta iyo qaabta shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka xubno ka socday hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale kuwa maxalliga inta badan u dhaqdhaqaaqa arrimaha xuquuqda haweenka ayaa waxa barbilow kulankan iba fulay isla markaana sharaxaad dheeriye ka bixiyay ahmiyadda gaar ahaaneed ee u leeyahay haweenka Somaliland. agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Maxamed Aadan Ilkaase inaga ka dawlad ahaan lafteenu siyaasadii way socotaa sharcigi waa socdaa laakiin de koosna halkan aad bay uga gabayday sheekhuna aad buu uga hadlay khadrina aad bay uga hadashay taanagu waxaan leenahay dumar oo mindiyaha dhiga ila rag wax ma gudayaane hooyooyinka waxaan ka codsanaynaa in ay mataqaana arinta qayb lixaad la ka qaataan oo dawladuna siyaasadeeda adkayso dumarkuna wacyi gelinta ah in hablaha guditaankeeda aynu mataqaana talaabada ka qaadno waayo abu inta badan ma ogaba laga yaabaaba in muxuu ahaa nooca gabadha loo gudayay sida ma taqaanaa de loo sameeyay laakiin waa dumarka marka halka lafteeda waxaan leeyahay nafis iyo nagaadba de malaha waxa fiican dumarku inay aad isu gaadhaan oo fariintooda aad isu gaadho yiraahdaan ma taqaanaa arinta aynu talaabo ka qaadno dhankooda waxayna halka hadalka isaga daba maray agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qaabta Somaliland iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Xasan Daahir Dembiil waan koosay ina tiriba way naga filano la wada dareemay islaamku muxuu ka qabaa ma xalaal ba mise waa xaraam inaga intay naga kooban waxa weeye gudniinka la yiraahdo fircooni inaanu shareecada islaamka meelu kaga yaala jirin oo uu yahay muharram iyo caadaan banaanayn runtii aan ku noqono wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadku waxaan aad iyo aad ugu adkeynaynaa hawlwadeenada hawsha noocan qabta ogolaansho kama haystaan wasaaradda caafimaadka waxaa loo baahan yahay qofkii hawl caafimaad qabanaya oo arkay in bulshada u danaynayahay inuu marka hore ogolaansho haysto dhankooda hadallo kala duwan goobtan ka jeediyay xubno kala matalay hay'adaha caalamiga ee sidoo kale kuwa maxalliga ee ka howlgala gudaha dalka ee inta badan diiradda ku haya xadgudubyada ka dhanka haweenka aynu xusaynay oo la doonayo inay maankeenna ku jirto maalintani waa maalintii gudniinka fircooniga ah ee lagu wacyigelinayay dadka in la iska daayo dumarka waynu la dhalanay waa sidii la sheegay waynoo dhaxeen waynu dhalay intaba waxa la doonayaa inaynu ka wacyigelino oo aynu caadada xun aynu joojino sheekh Salmaan wuu noo sheegay wixii diinta ay nafaraysa wuu noo sheegay sheekh Salmaan koosna waxay noogu cabirtay oo hadalkii oo dhanba ay ku gabagabaysay gabaygeedii waxaana guud ahaan munaasabadan si rasmi ah u soo afmeeray wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Cabdi Daahir Amuud isagoo si qoto dheer u dul istaagay doorka ka wasaaradan ay siinayaan haweenweynaha Somaliland iyo sida loogu baahan yahay in meesha laga saaro xadgudub kasta oo lagu la kaco haweenka ma aha markii ugu horeysay ee mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland sidoo kale munaasabad bilan ugu boqoraan ka hortagida tacadiye lagu la kaco haweenka Somaliland oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable magaalada Hargeysa.